lahayow hooyadeen hooyshanada kase بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم إلا ما علمتنا كسو داودا كان مانتا waxaan rabay inaan message u diro ummadda Soomaaliyeed okay aan ku iraahdo xanuunka hablaha iyo familiyaadka Soomaalida ha ku caayina do you know why because first is haram inaad dad maaragtay hadduu xanuun ku dhaco inaad ku caydid waa dhaqan xun waa akhlaaq xun islaamka raali kama aha okay and secondly you need to know waxan waa emergency Soomaalidana haddeer waa nagu badatay and qof kasta ee daawanaya naftaada weydii ma garanaysaa family ku dhacday xanuunka autism jawaabtu yes hadday tahay then we have a problem yes statistically in the UK is 1 in 56 okay that's every lixdan cunug one by autism. Aniga, I disagree with this because as a community worker, dad badan ma garanaya and Somaliderna and everybody have a child with autism. I think every 3 family maybe will have one. Hatta waxa la gaaray heerkii in alla haysto 2 iyo 3 ciyaala. Okay? wada inamo hablo way ku jiraan. Laakiin groupkayga hadda waxaan haystaa walaalo hablo walaalo ah ciyaalkooda autism iyo ADHD haysta waxaan haystaa hablo cousin ah mid kasta cousinkeedii waan haystaa hablo asxaaba okay this is what emergency waa national emergency dad badan bay ku dhacday laakiin mushkiladda Soomaalidana waxaan haysanaa 2 shay one waxaan baqinaa lagu caayo lan xanuunka dhaqankan xun waan haysanaa aan dadka isku caayinno okay I'm sorry I'm getting angry but this is horrible okay hablaha groupka waxaan ku iraahday hablo message-ka maxaa u dirisiin ummadda Soomaaliyeed kulligood they said one thing aydaha naga daayaan ha oranin Xaliimo cunug baa ka xanuunsanaya ha oranin Xaliimo nabsadii hebel baa ku dhacday ha oranin Xaliimo ciqaabtii Ilaahay baa ku dhacday you don't know that you don't know waa cilmi la'aan waa diin la'aan waxanu because maanta horta you cannot speak on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala who are you to say qofkan nabsad qof kala ku dhacday ama waa cuqubad how do you know that message baa lagu soo diray in your dream astaghfirullah al-ali al-azim no habibti no walaalo qof ma ku cayni kartid wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay don't you know it's a blessing you don't know qofkan wuxuu soo maray adiga ma garanaysid you don't know qofka historigiisa you don't know qofka dareenkiisa anagana Soomaalidan waa isku joogsanaa this is the biggest problem we have I'm sorry to say this and I'm sorry I'm getting angry because other sanad baan la jiray hablahan and the same thing alla walaalay dadka maxay u sheegaysaa dadku waa ku caynayaan maxay caynaysaa if I have a child with autism maxay ga caynaysaa why what did I do to you intaad maanta garab istaagi lahayd baad caynaysaa alla cunug xanuunsanaysa haysata alla we need to stop this dadkii wada depressed people are getting depressed people getting anxiety because of what community عينية استغفر الله العلي العظيم حرام وهي حرام اتقوا الله إله لا قبضه I'm sorry I'm getting angry but I'm very emotional about this because I have hablo group كوينيا I have hablo charkodi ba كوينيا why and let me tell you this gabadhan aad ku caynaysid tomorrow could be you ilaa yana ku keenin ka fakir maanta hadaad tirahdid alla Xaliim cunug xan waalan bay haysataa tomorrow could be you gabadh way ku dhacday groupka baa niga sheekaysay waxay tiraahday gabadh jaaradeeda baa ku caynaysay ingiriiska joogta magac ma sheegayo and she was saying jaaradeeda way tagtaa way soo bacdaa cunuga bay ku mashquul tahay maxaa ka galay if you're not helping فالمسلم من سلم الناس من لسانه if I say the hadith correctly رسول عليه الصلاة والسلام بما معناه وعراد المسلم من سلم الناس من لسانه if I remember this استغفر الله okay so أفلقادة
يعينا كده دتك أفكا قبصه فليقل خيرا أو ليصمت خير أرى أما أمس. So this is the message I want to send to أمة الصوماليات. حنونك autismك, your ADHD, your depression, also depression, your anxiety when we were the batin. And I'm telling you this from someone who worked with the community. when we go batin. ما أنت هداد يقو عين السد مركان host شوغو tomorrow it could be you. So كفكر إلها كعبصه قرب كيغا هداند نقوننن walaasha haddaanad la istaaginin oo maanta caawin lahayn afkaaga ka cisho bas. That's all you can do. And I have to say this, xanuunka autismka, your ADHD, your ciyaalka inamada Soomaaliyeed depressionka haya, your anxiety, this is becoming common. This is becoming too much and becoming common, and anaguna mashaakil kama hadalno. social media markaan soo galo YouTuber okay YouTube-ka markaan fiiriyo waa wada prank, waa wada qosol, waa wada maanta hablaayo waxaasi soo samaysay, waa wada cayn, laakiin problemkeena ma ka hadalno. Only 1 or 2 YouTubers aan arkay. We have problems. We have serious problems. And if we're not talking about it, waan dayac minna, especially dadka qurbaha joogo, we're going to be lost. I have hablo calling me. Ay soo wacaan, ay ooyiyaan, waxay leeyihiin dadkii way nagu caynayaan. Ciyaalkii waa la qarinayaa. Because of you dadkan caynaya. Dadka ha dulmina. Dulmka Ilaahay uu necab yahay. Stop it. Ilaahay naga wada cafiye. Waa jaahilnimo waxanu. Ilaahay naga cafiyo. It's very wrong. And I think you should be ashamed of yourself. Maanta hadaad walaasha ku caydid. tomorrow aday kugu dhici kartaa. Ilaaha ka cabso. dadkii nafsiyadda ha laga jabinina. Ha ka jabinin. Hablo waxay gaartay masaajidka ciyaalkooda ma ku kaxeen karaan. gabar bay sheegtay. Masjid ma ku kaxeen karaan. Why? Waa lagu cayniyaa. Waxa lagu leeyahay inanka waa naga qabso. Is this what are you doing? What are you doing? Maanta gabadh hadday cunug disability leh masaajidka waa inaad tagtaa ay soo nafista. Why? She can't pray? Why can't you go and pray and she can't pray? guriga maxay ugu haynaysaa? Why? Because of you. You can get out. ittaqu llah. dadka masaajidka Ilaahay ka celinina because she has cunug xanuunsanaya. intaad la qaban lahayd inta ku walaalay ma ku caawin karaa? Can I help you? Can I help you? cunuga anaa ka nasiniya. No. Soomaalidana waa isku joogsanaa. That's what we do. I am angry. I am angry at our community. I'm very angry. And you know what? If you don't like the video, please switch off the video and get out. It's fine. It's fine with me. I don't care. I actually don't care. dadkayga waan difaaciya. And I'm speaking on behalf of mothers who have children with special need. All children with special need. I will talk on their behalf. Because yes, it affected me, affected my family, it affected so many of my friends. And guess what? This is happening across the world. Autism is not something that's going to go away now. It's not. Maanta gabar bay ii sheegay say, and she said, walaasheed saaxiibadii weeye, and she said, oh, walaasheed cunug autism haystaa lagu sheegay. And she was very upset. She's very upset. And haddeer it becomes everybody I know. Family kasta aan garanayo, asxaabnahay, way haystaan cunug. Haddeer cunug is not even one. Saddex baa la haystaa. Saddex, labo walaala ah. Each one of them have like me and my sister. I have friends in Sheffield, in Liverpool, in London, in Birmingham. They all have children with autism. ciyaalkan la qarinayo ha la iska daayo. Please, if you have a child with disability, be proud, take them out. guriga ku xabisin, because this will damage them more. waxaan garanayaa familiyo ciyaalkoodii way qarsanayaan. Why? Because community baa kugu caynaya. Ha ku caynin. Because we did not choose to have a child with disability. Ilaahay baan siiyay. Waa hadiyad Ilaahay. Alxamdulillah rabbil aalamiin. wax kasta Ilaahay waa lagu mahadnaqiyaa. Alxamdulillah. Waa imtixaan. Waa blessing. Okay? You can't know exactly why Allah gave you a child with special need. You don't know. But you know this is your blessing, and you will love your child. You love them, you look after them, you help them
to be the best they can, to reach their full potential. لكن مركان هايصنو community إسحامانية إسعينية إسكتشوكسنية إسعدادية qofkii maxaa ku dhacaya nafsiyadiisi nafsi xumi baa ku dhacaysa wuu jabaya it will be depressed taqullah ilaaha laga cabsado horta anagu dadkan ka baqanaa mid kasta waa lagu cayniya wax baa laga sheegaya that's why problemkina ma sheegno ilaa ciyaalkeeni are committing suicide Birmingham way ka dhacday London way ka dhacday Our teenagers are committing suicide. Why? Because the mother couldn't even... There's so many reasons why they're committing suicide. I'm not going to blame anyone. That's another topic by itself. لكن community is حرن is شعل dad is كورقبة ما نهن. We are not. We are not. I'm sorry if I had done حناقي. لكن I'm very passionate about this and I just wanted to say to people, please, let's help each other. Let's stop والدينتن دبان dadku way dhiban yihiin especially hablaha ciyaalka autism ciyaal haysta dadku way dhiban yihiin ilaahay laga baqsado ilaahay laga cabsado let's help each other let's stop inaan isku joogsanno please inaan hoos isdhigno horumar baa la rabaa waxaa la rabaa gabadhan maanta saaxiibada hadday leedahay cunug autism lagu sheegay walaalay u tag tell her please can I help you waxaan haystaa mid saaxiibada here magaalada Eindhoven aan isbaranay gabadha markuu inankeygii ahaa too much qalqaali marmar waxaan ka jiray walaalo fiican tahay waan soo casumi jiray and then gabadh yar like inankeyga bay haysatay mar waxaan ma rabtaa inaad gurigaaga u kaxaysatid lan waxaan rabay qof iga nasiya 2 hours ama 1 hour man I didn't have it. I have so much support alhamdulillah okay but sometimes ninkeygu shaqeynayay and sometimes I'll be like ma qaadanaysaa just for 2 hours please and waligay ma la fadhiisan aan ku iraahday walaalay aniga dhib baa haysatay caawitaan baan rabay ma u sheegin because waan ka baqday aniga laftigay waan ka baqday waan ka xishooday ma garanaynin sidaan u sheega walaalay ma kari I'm very tired cunug kalena yar ka yar waan haystaa please help me I should have said that gabadhii haddeer 1 month ago waxaan ku irahday Caasha dheerahdaa Caasha waan la fariistay waxaan ku irahday walaalo macaan wax baan ku sheegay waxay tahay warta asad walaalay ma xusuusataa sanadkii hore markaan kugu oran jiray Yaasiin ma iga kaxeeni kartaa 1 hour 2 hours waxay tahay waan xusuustaa waxaan ku irahday walaalay ma ku sheegin sababta aan rabay inaad iga kaxaysid because waan daalana because I needed a break waxaan rabay 2 hours without him waxaan rabay inaan nasto waxaan rabay inaan guriga ka shaqeeyo because when you have a child who's so hyperactive ma tukan kartid ma shaqeyn kartid guriga ma hagaajin kartid waxba ma karin kartid it is tiring unless you put them in front of the TV which I didn't want to do that because maskaxdii more damage buu gaarsiinaya okay too much TV not few hours but anyway ask for help Please, if you have a child with special need, ask for help from family, from friends. It's not a sign of weaknesses. You're just a human being and you need a break. You will reach a breaking point. You will be depressed. I was very depressed. It was hard. It wasn't easy. And while process, you have to go through it to get to the better end, to the end. And you feel better. So, community geena, wallahi waxaan cudsanayaa inay dadku usu naxariistaan please dadka yaanay war iska sheegin especially haddii gabadhu haysato cunug with special need because it's not our fault waxaad ka dhigteen is our fault inaan anagu wax qalad sameynay anagu qalad ma sameynin ilaahay baa hadiyadna siiyay ilaahay alxamdulillah baan iranay and we have difficulties and we have challenges and we have blessing how do you know that girl that's her ticket to Jannah how do you know maybe Ilahi subhanahu wa ta'ala yadu doortay because unuga she's the only person who can be the mother for that child. Please, dadka aflagaadada, you aida, you taking the, I'm not saying it, stop it.
حرام وي اتقوا الله إله لقى عبصده إلهي سبحانه وتعالى وعادل الله وحكيم الله وعادل إلهي ونقدره and we said الحمد لله رب العالمين and we accepted our children, we love them, we care for them with passion and we want the best for them and وأود دارنا but then أضاء إيمانسا نعينسا نهروفسا عيال كاني هوس بقو إيجسا because they have special need. How dare you? How dare you? But anyway, this is my very angry video at the Somali community. I love our people. dadkayga waan jecelahay xoog baan u jecelahay dadkayga waan jecelahay khayrkan u rabaa laakiin anagu waa inaan iscaawinaa wadankeeni waa ka waa aragteen waxaan isku sameynayno qurbahan iyana waxa la isku sameynin because we are tired and all we want is support ama afkina naga cishada. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.